نصيب قدر باجيو قيمة كل هاي دكتيدا حسوسي قاليا قيمة كل هاي دكتيدا حسوسي قاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مانتا aan soo dhaweynayna fanaankeena weyn Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac dhamaan reer Sweden hadaan nahay maanta waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen marti inoo ah waxa inoo la jooga fanaaniin fara badan waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaankeena Cabdiqaadir ku soo dhawow. waa dhawahay waxa sharaf noo ah inagoo reer Sweden ah reer Stockholm ah inaan maanta ku soo dhaweyno halyeegeena weyn fanaankeena weyn Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan magaca dhan waan garanayaa ku soo dhawow Sweden aniga iyo reerkayga iyo ehelkayga iyo dad la jecel yahay oo dhan baa magaalada kugu sugaya oo runtii ku soo dhaweynaya Soomaali weyn oo dhan baa ku taagan oo runtii ku hambalyeynaysa fanaan iyo suugaannimo ka sokow mas'uul baad tahay agaasime howladeena aan jecelnahay waa beri marka magac weyn weeyo nagu weyn annaga qaatasan dadkeennii ku soo koray howlada waa beri markay ahaayeen howlada aad iyo waddanka loo wada qadariyo heerkaas inaad gaarsiisaan rajaynaynaa oo aad meesha aad lagu dhiibay ka soo dhalaasho dhalinyaro maanta runtii aad iyo aad loo jecel yahay baad tahay marka ku soo dhawow Sweden ku soo dhawow Stockholm waxaan malaynayaa aan u malayn doonaa diijoosweyn oo u raaci doonaa inay noqon doonto the hit meesha ugu fiican oo aad martay tuurkan inay Stockholm noqoto marka soo dhawow aad iyo aad baan horta walaalka u salaamayaa Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Nimcaan Hilaac Nimcaan annagu dee laba qof oo walaalaa oo in fara badan walaalaa baanay rag fara badan oo ugu horeeyo Axmed Weli Ibraahim Maxamuud Faralle ayaan maanta halkan uga mahad celinayaa ninkan aad arkaysaan dhiig rag baa ku jira ninkan Nimcaan Cabdiraxmaan marka dhuuntiisa laga imaado aniga iyo isagaba rag baa dhiigoodii ugu jira waliba ninka Axmed Weli la yiraahdo kow ha ka noqdo magaca labaadna uu xidigaha geeska yahay waan ku faraxsanahay in fanaaniin ka soo baxday magaca xidigaha geesku ay noqdaan kuwa ugu saameynta badan bulshada maanta la joogo sababtay doonaha ugu soo waliba Nimcaan oo agaasime ah oo mas'uulka ugu sareeya fanka Soomaalida maanta aynan barbar taaganahay oo halku shalay taagnaa intuu ka kacay uu halka taagay waa magaca fankana sharaf bay u tahay aniga iyo in kale oo isaga ay saaxiib yihiin oo yabaal fara badan isku leeyihiin sharaf bay u tahay maanta halka Axmed Weli baan ka salaamaynaa Nimcaan waan salaamayaa aniga Nimcaan fankaygu qayb weyn ku leeyahay anigu dadka ma baranay isaga dadkay baray waa been anigu dadka fanaanka ayaa abwaanka dadka bara anigu waxaan baan qornaa nimanka dhuunta fiican baan u dhiibnaa dabadeedna wixii bay bulshada gaarsiiyaan dana hadhow baan noqonaa ninkii u dhiibay Nimcaan iyo BK iyo Mursal iyo nimanka wuxuu dhiibay baan noqonaa intay annaga magacayaga ku leeyiin iyo intan kooda ku leenahay iyo inta la isku leeyahayba waa intan aan walaalaa ku nahay Nimcaan dadkan ugu jecelahay khaasatan waliba la isku kaayo tiriya aadka u saaxiibka labadeedu ayaan nahay walaalkay aad baan kuugu hambalyeynaya horumarkaaga aad baan kuugu hambalyeynaya talaabooyinkaaga quruxda badan nolosha ka gaadhay shalay aabba maad ahayn maanta aabba tahay shalay nin yaroo dhalinyaraadaad ahayd maanta ninkaa odaygaadaad tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kulanno adoo darajadii aad joogtay mid ka sarreyso ka fiican joogta aniga aad bay weliba wallaahi farxad aada ayay ii tahay jacaylkii qabiyoobay muu qabiyoobay ninka uu ka dhamaystiray jacaylkuu baa qabiyoobay بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan halkan u taaganahay inaan soo dhaweyno si qurux badan gacmo furan iyo qalbi furanba fanaanka Nimcaan Hilaac oo aad wada garanaysaan runtii waxa uu jooga madax fanaaniin iyo shacab fara badan waxay leeyihiin ku soo dhawow Stockholm sharafeena oo tahay waan ku faraxsanahay Nimcaan waxaan ku soo dhaweynaa Stockholm
هذه ما ستهاي فولي السلام عليكم دمان si guud iyo si gaar ah ayaan idiin wada salaamayaa ummadda reer Sweden qaasatan reer Stockholm walaalkeen fanaankeena Nimcaan waan soo dhaweynaynaa annagoo si garba siman u soo wada dhaweynaynaa waxaan leenahay Nimcaan ku soo dhawow Stockholm هذا ما سنتين دمانتين walaalkeen Nimcaan Hilaac ayaa maanta soo dhaweynayna anagoo ah reer Sweden soo dhawa walaalkeen Nimcaan anigu de fursad baan u haystay inaan Nimcaan hadda tourkan aan kula jiro Europe oo magaalo kasta tagno Nimcaan walaal once again ku soo dhawow Stockholm meeshan waa showga qarniga taa anaka kugu ballan qaaday anagoo isku duubnan marka aanan u kala axan magaalooyinka kale de meeshii aan ka soo barbaaray ku soo baxay xagga waa Sweden marka of course gacmo furan ku soo dhawow walaalo taariikh waan ka dhigaysaa once again Europe ما شاء الله marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha khaasatan waddankani aan maanta martidoonahay waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inay soo dhaweeyaan dad qiimo badan aan jeclahay aniga qaaliga ah ruuxantii soo dhaweyntiin waa mid aan si gaar ah xusi doono qalbigeygana ku taala waxa dhinacayga jooga Jeylaani bidixdan waxa jooga Maxamed Xasan Xuseen Lafoole oo aad iyo aad aan u jeclahay ahna banaan aan ku daydo oo badan dadku waxa weeye waskay ogyihiin waxaan rajaynayaa inaanu bandhigan iyo waqti fiican iyo waayo fiican wada qaadan doono marka labaad waxaan fariin kale u diray reer Sweden oo maanta martuunahay runtii waxaan rajaynayaa toddobaadka bisha inay wax noo qabsoomaan bandhig qurux badan hadii la helaa qiimo badan waddamadii aan soo marnay runtii way tartamayeen laakiin waxaan rajaynayaa inay tani ka sii badiso hadii ilaahay wada joognaa aad iyo aad badan ka celinaysa dhaweyntiina